السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جانل كانا كوبcinta garaadka carruurta waa walaashin raxme xuseen. maanta waxaan u hayaa qiso. marka qisada waxaa weeye gabar yar oo arday ahayd oo aad iyo aad u akhlaaq badneed oo maxaa la dhihi jiray ardayda oo student ahayd gabar iska kuwaayda ahayd maasha allah macallimiinta iyo maxaa la dhihi jiray dadka shaqaalaha meesha jooga dhammaan kule waa la wada jeclaa. marka gabadhii waxaa ku dhacday maalmaha ka mid ah ayay gabar iyadoo musqush u socota kala tuurtay, way galdareysatay. haddana iyadoo waqtigii qadadii way galdareysatay sidoo kale inay la dirato isku daydo, laakiin maadaama iska degantahay waxba ma sameynin. maxaa la dhihi jiray mar saddexaad gaari dhexdiisa kula dirartay iyada, laakiin waxaasoo dhan shaqo muu ku sameynin. laakiin gabadhii eedaraad sameysay macallimiinta iyo dadkii maamulkii ayaa shaqadeeda ka qabtay gabadhii oo gabadha galdareysanaysa. marka xaafadii markay tagtay oo hooyo aragtay oohin kala jabsatay, way oys hooyadii way arrintii u sheegtay. isla markii hooyadii gaari dhaqse iskuulka gabadheedina hore usoo wadatay, iskuulka imaadeen. macallimadii say ugu qaylinaysa aniga marka waa ku dhex jiray oo isku day inaan dejiyo oo isku day xataa in aan gabadha xataa meesha ka leexiyo, yacni se u arkin maamada inaan dejino. wax dejiyaa la waaya qaylo xanaaq waana garay ulaada waayo gabadheeda tiri 3 mar lala dira. marka iyo gabadheeda ooynaysa aragtay waa garay. marka gabadha marka waxay ku dhahday hadda kadib carruurta iska celi, dib dabahada cunug ugu soo ooysanaana adino aaleysa barti ugu dhaaratay. marka gabadhi marka hadalka si dhab u qaadatay. markeena sanadkaas wixii ka dambeeyay gabadhi waxay bilowday dagaal wala xushmad la'aan, wax carruurta macallimiinta kule la dirto. kadib maxaa dhacday waxbarashadeeda hoos u dhacday. gabadhii akhlaaq lahayd ee student ahayd waxay noqotay ardayga oo F student ay noqotay. marka dhibkaas dhan waxaa u keenay waxay aragtay macallimadeedii oo lagu qaylinayo. mar walba marka sheekadan way nagu dhacdaa. haddii adii macallimiinta aa isku dhacdiin ama macallimiinta waalid haddaad tihiin ama waalid haddaan ahne naga xanaajiyaan whatever, dad bilaadan waa, laakiin marna ka digtoonooda. gabadhan keliya maaha, qisooyin badan aan la soo kulmaan arkay. marna cunugaada dugsiguu dhigana ama iskuulkuu dhigana haddaa ka careysan tahay marna cunugaadii ogaanin, waayo markuu ogaado xushmadii uu u lahaa uu waxbarashada gelin lahaa, xushmadii ka dhaceyso. mar hadduu cunugii macallinka xushmeyneynin oo iskuulka ixtiraam u haynin oo madarso ixtiraam u haynin, waxaa dhaceyso inuu cunugu waxbarashadan ixtiraam u haynin. marka si kasta ugu xanaaqdiin waxaa sameynaysiin in carruurta idin ogaan. marka gabadhii qisada saasaa ku dambeysay. marka mar walba marka waxaa isweydiiyaa oo igu dhali had qisadan inaan idiin soo sheego. macallimadaas hadda saas loo galayo macallimad waxay ahayd caddaan ah. kas haddii maanta macallin qur'aan oo cunugaada baraayo asaas si lamid ah ugu qayliso, balka macallin qur'aan ah oo cunugaada diintii kuu baraayo, hadda intaa ku xanaaqdad bilaadanaa taha asaas cunugoo fiirinaya asaas ugu qaylisid, balka war maxaa ku dhici karo. gabadhan hadda macallimadaas caddaanka lagu qayliyey ayaa waxaa ku dhacday waxbarasho la'aan ku riday. macallin qur'aan waa kasii daraa. marka macallimiinta khayr allah siiyo, shaqo badan inoo hayaan. waalidiintana khayr allah siiyo, shaqo badan inoo hayaan. laakiin markii la isku dhaco carruurtii ogaanin. markasta macallinkaada qatar waa dheh ama iskuulkaada waa qatar. si kasta aad dareemayso cunugaada meeshaas u faan insha allah.
وادين سلامة سبسكرايب قرايا شير قرايا إن شاء الله حرجينا إناد كسو هشين وحي قصة هذه كان أهيسين أو ساسو كلا إلى السو وذاك السلام عليكم.